runtii taa waxaan ka odhanayaa waxa weeye waa maqlaayay ninka xayde Sultan Xasan burca ka hadlayay waana maaha markii koowaad waxaan aad iyo aad u hayday wax lala yaabaa in suldaana oo weliba sandaradii hore ka soo jeeda inuu caado iyo dhaqan ka dhigto inuu faano inuu dad daleeceeyo inuu had iyo jeer golo walu tagaba waxay hayday cid ka duro waxay markaa waxa weeye oo uu qabyaaladii iyo kala qaybin dalka ku saabsan uu ka hadlo oo sidoo runtii isaga iyo sandaladdu sidana ceeb weyn bay ku tahay laakiin waxaan u arkaa waxa weeye iyo inta ku raacsanba inta waa ceeb bay ku tahay Soomaaliland dimuqraadiyadeedii iyo wax wada lahaanshaheedii ayaa muuqatay inay dhaawac weyn ku tahay waxaan u arkaa runtii maamulka dawladda maanta jooga inay ka haystaan maxay ragga shacabka isu garaacay kulba qabyaalada ku hadlay kulba maxay bulshada kala qaybinay inay uu nafkoodii ku hadlayaan baan u arkaa marka waxay la tahay ninba wuxuu tabcad ugu heli doonaa hadii laga dayn waado oo bulshada wada noolaanshaheeda iyo wanaageeda la taxagelin waado oo maxay hayday maalin walba faan iyo shacab isu garaacay timaado waxay la tahay waxa weeye waa maxay cid loo magaranaysaa waxa iman doontaa ama waxa la wada leeyahay Soomaaliland noqon doontaa dadka ka dhaxaysa oo horu socoto dimuqraadiyad iyo wanaag la tabcay yeelata yaama Soomaaliland maxay hayday cid gaar yeelan mayse dib looga tashraabay noqonaysa marka intaas aan taana ka odhanaya aad iyo aadna weydiin salaamayo oo mahadsanid